well hadaba aan bilowno cashirkeeni koowaad ee barashada luqadda Englishka English language fadlan ha iloobi inaad subscribe saarato English American channel saaxiibadaadana la wadaag haddii aad hore nala joogteen aad u mahadsan tahay nala soo lesson 1 conversation cashir koowaad waxaan qaadan doonaa wada sheekaysi cashirkan waxaan diiradda ku saari doonaa sida anaga Soomaali ahaan Englishka aan ugu dhawaaqno oo aan u fahmayno dadka luqadda u dhashtay iyo sida ayaga ay ugu dhawaaqaan jumladaha iyo ereyada qaarkood. Let's get started. Aan bilowno marka. Wada sheekaysigan waxa sheekaysanayo Ali iyo Bilan. Ali dabcan waxa soo qaadanay A, Bilan waxa soo qaadanay B. Ali wuxuu leeyahay hello. waa kelmad salaan ah. Marka qof aadan hore is arkin waxa leedahay hello. Qof aadan aqoonin hi or hey ma dhihi kartid. Okay? Waxa leedahay hello. Bilan waxay tiri hi. waa ka qaaday hello waa ku salaamay hi waa ka qaaday Ali wuxuu yiri how are you doing iyo waran saatahay how are you doing iyo waran saatahay xaaladooda wareystay Bilan waxay tiri I'm good how are you I'm good waa ladanahay fiican how are you adna saatahay adoo la yaaban qofkan xaaladooda wareysanay Ali wuxuu yiri good do you speak English Good. Do you speak English? Ali wuxuu yiri good. Anna waa fiicanahay. Waa soo gaabinay good. Anna waa fiicanahay. Waxaad dhihi kartaa I am fine. Waxaad dhihi kartaa I'm great. Inta baa isticmaali kartaa waa fiicanahay laba. Wuxuu yiri marka Ali good. Do you speak English? Waa fiicanahay. English ma ku hadli kartaa? Si fiican ma ku hadli kartaa? Bilan waxay tiri yes, I speak a little. And you? Yes, I speak a little. And you? Bilan waxay tiri yes hawa ku hadli karaa luqadda Englishka. Laakiin soo ku hadli karaa I speak a little. In yaran ku hadli karaa. And you? Adna ma ku hadli kartaa luqadda Englishka. And you waxay u taagan tahay what about you? Adna iska waran ma ku hadli kartaa luqadda Englishka. Ay u taagay waa su'aal. Ali wuxuu yiri of course, it's my second language. Of course, it's my second language. Ali wuxuu yiri of course ha dabcan of course waxa waaye yes ay u dhigantaa yes ay u dhigantaa ha dabcan it's my second language waa luqadeedii labaad okay luqadeedii labaad waaye it's my second language waa luqadeedii labaad Bilan waxay tiri how did you learn English war English sa ku baratay Englishka sa ku baratay how did you learn Englishka sa ku baratay Ali wuxuu yiri well I learned from online class and practiced with my friends Ali wuxuu yiri well dabcan ama xagaag I learned from online class waxaan ka bartay hab online ah waxaan ka bartay online class hab online ayaan ku bartay oo gurigeyga joogo ayaa waxa waaye Englishka bartay and practice with my friends soo kale waxaan la practice gareeyay waxaan kula sheekaystay asxaabteyda soo Ali labada hab ee luqadda Englishka uu ku bartay oo uu tilmaamay waxay yihiin waa from online class and practice with his friends ta koowaad oo ah hab online uu ku bartay maadaama dunida hadda ay u sii jeedo xagga iyo waxbarashada online-ka ah qofka soo gurigiisa inuu wax ku barto cilmi kasta uu rabo sida luqadda Englishka oo kale ta labaad wuxuu sameeyay waa practice ayuu sameeyay wuxuu la sameeyay asxaabtiisa application waxa jiraan oo aad dadku kula xiriiri karto oo aad wixii aad soo baratay aad kula practice gareyn karto adoonaan wax cabsi kugu jirin okay marka su'aasha ku weydiinay waxay tahay qayb commenting noo soo qor how did you learn English or how are you learning English sa ku baratay haddii aad taqaano haddii aadan ka sayrin how are you learning Englishka qaabkee ku wada aad ku baranaysaa qaybta commenting noo soo qor si arday badan ay kaaga faa'iideystaan thank you guys like garay muuqaalka waxaan noo soo socda cashir kale oo xiiso leh cashir topic ah oo mawduuc ku saabsan cashir sidoo kale phrases ah marka cashir badan aan soo wadnaa fadlan like garay muuqaalka asxaabtaadana gaarsii si walaalo badan aan u helno thank you guys